السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta igu xiran Zainab Sheekh Aadan Jalaal. asxaabteedu waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba. maxaa la yiraahdaa insha Allah taala maanta wax aan karinayo ma jirto. backgroundkii waan iska saartay insha Allah, laakiin waxaan rabay maalin dhexdaas ayaan video half ah oo maaragtay iga kala go'ay almost week ayaa ku soo wareegtaa isleeyahay. marka ama ka badan ayaa waxaa jirtay inaan maaragtay video oo half iga noqday. marka waxaa dhacday maxaa la yiraahdaa insha Allah inaan dhahay asxaabteeda qaybta kale waan idin soo gudbinaa insha Allah. laakiin waxaaba jirtay in maaragtay aan waxyaabo badan oo maaragtay maalintaas aan ka hadlay kuwa kale oo maaragtay ayadii lamida iyo waxyaabo noocaas inay taagan yihiin weli. ugu horeysa maxaa la yiraahdaa maaragtay bulshadeena maaragtay in wacyigelinta qof walba geeskiisa oo ka qaato. qofka dadka Soomaalida maaragtay waxaa waaye dhib badan iska haysto maaragtay insha Allah oo kamid yahay hadda cudurka maaragtay corona oo dadkii wax badan maaragtay u dhimay. oo waxaan ku dhahay qof walba oo Soomaali oo aragtid qof ehelkiisa ayuu ku leeyahay maaragtay wuu baxay wuu dhintay. maxaa la yiraahdaa marka insha Allah taala ilaahay waxaan ka baryaynaa hor dadkeena inuu dhibta isbishal cudurka maaragtay oo ka dulqaado wadankeeni iyo meel walba dadkeena joogaan. kuwa dhiban dhibka Allah inuu ka qaado. maxaa la yiraahdaa howlo badan maaragtay dadkeena ay ku dhex jiraan sida hadda maxaa la yiraahdaa ay ugu horeysa maxaa la yiraahdaa ay sheegeen dacwada badoo kale. maxaa la yiraahdaa in ilaahay aan u soo barnay in wadankeena maaragtay oo isku dhameystirmo oo adiga aan nala kala fogeynin oo macnaha oo maaragtay ilaahay maaragtay sida maaragtay xaq ee waafajiyo in maaragtay wanaaga oo ilaahay na tuso. waxaa kamid ah maxaa la yiraahdaa kala aragti duwanaanta maaragtay haysata siyaasad dadka maaragtay siyaasadda ku jira iyo maxaa la yiraahdaa siyaasiyiinteena macnaha maxaa la yiraahdaa adoon siyaasadii wixii qaabkeedii dhex galinin haddana waxaa la rabaa in maaragtay waxba aysan ahayn maaragtay waxaan adduunka la isku haysto oo adiga wax maaragtay wax kuu sameynaya inaysan ahayn, laakiin aad ogaataa kaliya wax kuu sameynaya inaad maaragtay adduunka dadka ku nool siday sumcad u leeyihiin ay sharaf u leeyihiin. oo maxaa la yiraahdaa maaragtay markii ay safar galayaan oo kale wadan kale u safraan oo kale maxaa la yiraahdaa sharafta ay u leeyihiin qiimaha u leeyihiin inaa u yeelatid sida marka tahay qof Soomaali. hadda waan ognahay dadka Soomaaliga adigu dadkii sharciyo wadamo kala qaatay kama hadlayno, laakiin waxaan ka hadlaynaa qofka hadduu Soomaali yahay oo maaragtay oo wata sharciga Soomaaliga oo kale markii uu meel aado intii yar oo ku aqoonsan markii aad la soo fariisatid oo ama maxaa la yiraahdaa meel aad maagtid sida maaragtay lagu cunsuriyeenay marka Soomaali tawa ognahay. cunsuraduna waxba kala maahan waa adiga inaan lagu maaragtay ictiraaf weyn oo macnaha sharciga xagar sharciga aanan haysanin. marka insha Allah taala ilaahay waxaan ka baryaynaa in maxaa la dhahaa dadkeena Soomaalida kuwa fakara inuu ilaahay ka dhigo wadanka waa naga weyn yahay waa naga badan yahay. maxaan ku iraahdaayay baahi kama jirto wax uun adigu gacan ku samaysa baahi gacan ku samaysa oo af ku samaysa oo maaragtay xoog maaragtay anagu aan sameynay waay waxaan haysto dhan qalad aan sameyno waaye. maxaa dhacay intii anakoo walaalo ah oo haddaan wada abtirsano maxaa la yiraahdaa isku imaanayno oo hal luqad ku hadlayno oo hal diin haysano inaan maxaa la yiraahdaa aan maaragtay iskala fogeynay iskala faquuqnay oo heer hadda aan marayno in aan iraahno qofka hadduu jidka maraayo inuu calan gacanta ugu xiran yahay yar qabiilkooda aad sheegi kartid. bismillaah raxmaan raxiim wallaahi weligay nolosheedii calanka Soomaaliya waxaan ahay gacanteeda kuma xirin. haddii aan calan xiranayo haddii aan gacanteeda wax ku xiraa Soomaaliya calanka Soomaaliya oo hadda haddii aad qabiilka tahay gacantii kuugu xiran tahay soo dhib ma aha wallaahi billaah. markaad maraysid meelaha calamada lagu gado waxaa lagu leeyahay reehel ma rabtaa reehel ma rabtaa kan ma rabtaa waaba lagu kala bartabaadi waaba lagu kala yaqaanbo. marka waa waxaas maaragtay waxaas waa waxna kala bahdilay. marka walaalayaal insha Allah taala aniga ahaanteed waxaan dhihi lahaa dadka Soomaalida wax balayacniga oo maaragtay waxba qiimo ku sameynaynin war hadda hadii oo maaragtay wadan oo maaragtay shisheeye wax kugu gaaraan reebel ma yaqaana wadanka ma ka saayaba gobolka soo jeed ma yaqaana calanka xunka gacanta kugu xir ma yaqaana waa may
just wuxuu yaqaanaa magaca iyo wadanka ka timid meesha qariirada adduunka uga taalid bas taas days wax ku qaban weyso waxaan kala od wadid waxaan ku waa waqti lumis waa isdaalis ma fahantay marka maxaa la yiraahdaa insha Allah taala ilaahay khayrka hana waafajiyo aan isku soo duceyno dad badan oo waxaan ku arkay YouTube ma sha Allah oo maaragtay u badan gabdho iyo hooyooyinba kulli oo maaragtay wadanka u duceynaayo waxyaabo fiican ka hadlaaya dhanka wanaaga dadka maaragtay iyo wacyigelinta wax ka qaadanaya qayb ka qaadanaya iyo waxaan ku dhahay ma sha Allah dadkaas oo kale waxaan leeyahay walaalayaal hore u wada ha ka caajinina maxaa la yiraahdaa wax fiican aad xiisaan waxaan leeyahay ilaahay ajir ha idinka siiyo maxaa la yiraahdaa kuwa maaragtay iyakuna aan waxaas la soconin oo wixii eber 30 sano aan ku soo baaba'nay meelaha la soo fadhiya ama maxaa la yiraahdaa u nacamleynaayo waxaan dhihi lahaa kawaan tooba qofkii shalay joogo ma joogaayo maanta waxaan ku dhahay ka maanta joogo inuu bari gaarayo ma oga waxaa waaye maxaa la yiraahdaa aan maaragtay istaba qabanaan dhihi lahaa maxaa la yiraahdaa mar walba waxaa fiican maxaa la yiraahdaa qalad qofka bini'aadamka wuu gali karaa waxaan ku dhahay wax walba uu maaragtay adduunkan oo qofka bini'aadamka quraanka iyo diinta iyo anaga dhan waan ognahay dadku qalad way sameyn karaan ilaa dadkii malaa'ig maahan laakiin waxaa dhiba inaad ku sii taagnaatiin oo maaragtay waliga iskaga jirtid waxa waa laga baxaa waa laga gudbaa wadamo anaga naga darana jiro oo eber iska soo dhigay oo isu soo dhameeyay oo waxaan ku waxba iskula soo harin haddana waxaas ka soo gudbay oo aad iyo aad waxaan ku dhahay magaalooyinkooda hadda magaalooyinka adduunka ugu nadaafada badan ay ku jiraan ugu ammaanka badan ay ku jiraan dadkoodii maaragtay iyo wadankoodii horumarsaday caafimaadka waxbarashadii annaka meel aan ku fiicannahay ilaa hadda aan waan garan la'ahay mar walbo haddii su-aalna la weydiiyo waxaan ku faanaynaa inaan haysano dhul weyn bad weyn macnaha wadan madax bannaan kan waaye saan waaye haddana markii hoos aa iskugu noqono annakii inaan is cunayno eber iska dhigayno marka taasna wax qurxoon ma ahan maxaa la yiraahdaa mar walbo inaad maaragtay sanad walba rabsho iyo buuq in lagu jiro ma fiicno ilaahay dadka maaragtay madaxda noo ahna waxaan dhihi lahayn xaqa ha tuso kursigan oo maaragtay maalin walba qashashacda iyo naagaha masaakiinta oo ilmahooda intay maxaa la yiraahdaa u soo shaqo tagay wiiftada iskaga dhacayso waxay xabad maalaa yacni loo soo riday iskaga dhacayso waxaas cuqabo waaye marka walaalayaal maxaa la yiraahdaa cudurkii hadda waa aragteen sida wadankii dadka ugu laynaayo sida wadankii uga jiro marka ilaahay aan u barino salaada maaragtay marka tukan inuu ilaahay naga qabto qof maanta dhahay ani qof igama jirto Soomaaliya ama qof aniga wax ah wax ma gaarayaan inuu jiro ma umaleynaayo haddii dhan ammaana ay joogaan waxaan ku dhahay hadda maxaa la yiraahdaa ama adigu ay dadka Muqdisho ay dhib ku badan tahay haddana laakiin hadda cudurkii oo kaleeto xabad ma ahayn haddii meel xabad looga dhuumanayay cudurka meel looga dhuuma kara malahan oo maaragtay si fudud ayuu meel walba ku tagi karaa marka insha Allah taala asxaabteyda wanaag in la isfaraa fiican insha Allah taala wanaag waxaad ku weysanay hadda maba ku helaysid xumaan iyo qajajac kuma helaysid wanaaga wax ka fiican la waayay waarmaysid war ha ka haraal dhahay waa Soomaha war ha ka haro marka haddii aad maaragtay wax fiican adoo ka tagi kara inaad waxun ka tagto ma fiicno inaad maxaa la yiraahdaa bariyan ka toobad keena iyo bariye saas noqon doonta ku tashatid maahan bari hadaad gaari weysid waxa waaye waa dhici karta Soomaa waa dhici karta inaad maxaa la yiraahdaa bari inaad gaarin way dhici kartaa marka insha Allah taala aan waxaan dhihi lahaa wadanka aan u duceyno aan ilaahay barino insha Allah taala si maaragtay dhibkaan oo maaragtay saaidka u badan oo maxaa la yiraahdaa bulshadeeni maaragtay aad u la rafaadsan in ilaahay naga qabto asxaabay mar walbana insha Allah taala quraanka iyo adkaarta iyo saliga nabiga aan akhrino si maaragtay aan u helno maaragtay maskax degan oo maaragtay dadkeeni baylaha kala noqday inuu maxaa la yiraahdaa ilaahay maaragtay isku soo celiyo oo meel ammaana
iyo dhul ammaana uu wadankeena ka dhigo oo waxaan ku dhahay barwaaqo ah caafimaad leh cudurrada iyo dabaylaha iyo waxaanoo dhan waxaa keento maxaa la yidhaahdaa xaqa dadka masaakiinta howlgalay marka ilaahay kulli waxaan dhihi lahayn waxa naga qabto maxaa la yidhaahdaa wadamadii maxaa la dhahaa aan dhahaynay ammaana ka jiro saan waaye waa aragtay sida dadka loogu dhibaateyna gabdhaha soomaalida masaakiinta ilmaha looga qaadanayo loo rafaadinayo loo salcinayo maxaa la yidhaahdaa ilmaha yaryarka ahay maxaa la yidhaahdaa iskoolaadka looga wadanayo meel walbo loogu taagan yahay sida loo dhibaateyna waa aragnay marka xilligan kadib inay maxaa la yidhahdaa wadan kale loo sii qaxiyo dadka ma fiicno maxaa la yidhaahdaa insha allah inta hadda ku dhibanna allah ka dulqaado inta maxaa la yidhaahdaa aan usoo socotane iimaankooda maxaa la yidhaahdaa ilaahay maaragtay ha u dejiyo waxaan dhihi lahayn kuwaas maxaa la yidhaahdaa dadkii walaalaha ahay yaa casharka ay u dhigeen aan kuwaana qaadano insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa inuu ilaahay dowlad caadilana siiyo oo maxaa la yidhaahdaa ammaan ah oo waxaan ku dhahay dadkeena iyo dalkeena wax u qabata oo waxaan ku dhahay maxaa la yidhaahdaa xuduudaheena noo ilaalisa oo waxaan ku dhahay maxaa la yidhaahdaa ummaddeeda ka warqabta oo ilaahay taqaana dad maaragtay ilmahooda inta dhoofisteen dadka masaakiinta ilmahoodii maxaa la yidhaha waxay rabaan ka samaysanayo ka dhiganayo waardiyo iyo dhibaato iyo inay hub u qaadaan rabana allah naga qabto waxaan leeyahay videogan video intaa kulmi doona asxaabe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadgelyo